السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. waxaynu maanta halkan ku haysanaa alaab aynu ka sameyn doono cunto cuntadaas aynu isla wada arki doono qaabkaynu u sameynayno iyo waxaynu ka sameynayno. intaanaynu guda gelin subscribe-ka ha ilaawin haddana iigu jirin like-ta iyo share-ta adigu haddaad hore iigu jirtay haddii kalena saddexdaba israaci. halkan waxaynu ku haysanaa alaabtaynu ka sameyn doonay ulahan ayaynu haysanaa. halkan toon baa inoo taala. waxa weeyaan xawaajkii laga sameeyay waxyaabaha cagaarka basal sinjibiil weeye sinjibiishii qoyanayd waxa weeyaan barbaroonigii casaa oo shiidan waxa weeye coriander ama geedadari qofka siduu yaqaan. alaabtan kofta masala waxa weeyaan xawaash hindi nagu dad doonto waad ku darsan kartaa dad doontana ma baahnid. khamuuntii ama xawaash dhuudhuub waxyaabahan waxa weeyaan xawaashyo la isku dardaray oo hilibka la mariyo. basbas qajigii oo la soo burburiyay isagoo qalalan dabcan. filfishi madoobayd filfishi madow iyo hilibku ma kala maarmaan isla ogaada weligiin. halkan waa saliid iyadana dee alaabtii ayaynu ku guda jirnaa sameynteedii. baradhadan iyadana waynu soo maydhnay ma rabna inaan diirka ka fiiqno ama aynu dhilno sidaasaynu ku gelin doonaa ovenka. hadda waynu jarjaranay waxaynu ku daraynaa saliid yar saliid olive oil ah ama saliid saytuun ayaynu ku darsanaynaa iyo in yar oo milix cusbo ah. kadibna ovenkaynu gelinaynaa haddii ilaahay ka dhigo halkaasaynu ku shiilaynaa. maasha allah. hadda waxaynu soo diyaarsanay alaabtii basashii sidanaynu kasoo dhiganay sinjibiishii iyadana sidan baynu ka dhignay toontii iyadana waxaynu ka dhignay sida tan ay ugu jirto meeshaas. filfishii madoobayd ayaynu iyadana soo tunnay mooyahan ku tunnay. filfishi madow waxaa fiican marka saa loo tumo in lagu darsado hilibka way ka macaantay marka iyadoo diyaaraad soo qaadato kuleelkeedii xidra bay wadataa. halkan xawaajiyadii kale ayaynu iyagana diyaarsanay ayaynu ku darnay hilibkii duqadda ahaa ama shiidna. alaabtaynu soo wada diyaarsanay waynu ku wada daraynaa hilibkaynu meeshuu ku jiro isugu wada geynaynaa. maasha allah udgoonka kasoo baxaya wixii oo xawaash ahaaba meeshii isugu tagay durtada iyadoon la isku hashin ayuu waxaan ku yidhi udgoonkiisu halka kaa saaqaya caraf. maasha allah maasha allah. cuntadan dee waxaan ku yidhi casho haddaad rabtid inaad ka dhigato aad bay ugu fiican tahay. saliid yar baynu ku daraynaa haddii ilaahay ka dhigo. haddaad rabtid inaad maxaan ku idhaahdaye qade ka dhigato iyada qudheeda waa la sameyn karaa laakiin anigu cashada ayaan aada ugu jeclaan lahaa. hadda waynu isku xashnay wixii oo dhan maasha allah. sidanay noqotay alaabtii maxawish bay u eegaat sida aynu qoriga u dhex gelinayno haddii ilaahay ka dhigo sidan weeye. qaab ahaan sidan ma u sameeyo laakiin hadda maadaamaan raba inaan idin tuso saasan soo hadii kala gacan labada gamcood baan isugu geeyaa sidanay kusoo baxday. haddii aad rabto inaad dhuxul ku samayso waxaad sameynaysaa qori adag baad gelinaysaa ama kuwa birta ah wax lagu garileeyo. biyahaas hadda aan faraha gelinayno waxaynu u sameynaynaa marka hilibkaas la sameynayo badanaa waxaa fiican inaad bihaan ku raahdayo biyo agtaada yeelan marba aad geliso si hilibkii kaaga hadho. haddana maqligaynu saarnay ayaynu ku shiilaynaa. maqligii baynu kusoo wada shiilnay maasha allah. alaabtan oo iyadana loogu talagalay in hilibka grillka ah
si aan u qalalin ayaan marba ku yara buufin doonaa. alaabtan qofka isaga samaysan karaba marban idin tusi doonaa insha Allah sida loo sameeyo. halkan dhuxul ayaynu soo shidanay. talo dhuxusha maxaynu ku falaynaa? dhuxul yar ayaynu soo shidanay. waynu arki doonaa iyadana waxay qabanayso dhuxushu. iyadu waxaan ku xitaa hawsha dhinacay ka wadaysaa. dhuxushii halkan la dhigay ovenka la geliyay hilibka markaan maqliga ku soo shiilnay wax yar oo soo yar casaaday dhinacyada dhexda sidoo si fiican uga bislaado waxaynu gelinaynaa ovenka ilaa 10 daqiiqo 15 daqiiqo meelaha laakiin 10 daqiiqo oo fiican. hadda dhuxushii wada aragtaa waxay qabanayso qiiq bay sii deynaysaa si maaragtay in dhuxul lagu soo gareeyay oo kale maasha Allah. cuntadii sidan ay ku soo baxday maasha Allah qurux waa aragtiin kala iska arag maasha Allah deeha moogaanina baan ku iri cuntadan inaa sameeysiin. haddii ay wax su'aalo ka qabtaana commentiska iigu soo qora xagga hoose.